السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dunida kubadda cagta waxaa ku jira qisooyin aad u la yaab badan oo xiiso leh, kuwa adag, mararka qaar khilaaf weyn dhaliya, cunsuriyad keena, dalal dhan isku diri kara, iyo sidoo kale arrimo badan oo la yaab leh. Waa dareen ka fog kaliya kubadda ay isaga hor yimaadaan 22 ciyaartooy oo kooxiba 11 tahay, kuwaasi oo matalaya laba dal oo garoonka soo gala. tartanka koobka kubadda cagta adduunku waxa uu ka mid yahay kuwa ugu xiisaha iyo xamaasadda badan tartamada adduunka, maadaama kubadda cagtu tahay tan ugu shacbiyada badan quruumaha adduunka marka loo eego ciyaaraha kale. sanad kasta oo tartankani qabsoomo 4 sanaba mar waxa laga diiwaan geliyaa qisooyin iyo dhacdooyin la yaab leh oo ka fog kaliya guusha, guuldarrada, barbardhaca iyo natiijada kulan ka soo baxda. tani waa mid ka mid ah qisooyinka la yaabka leh ee tartanka sanadka socda ka soo baxay. waa qiso khilaaf weyn ka dhex dhalisay Faransiiska iyo dalka Paraguay oo ka mid ah wadamada Latin America. kulankoodii ay maalmo ka hor yeesheen kadib kulankaasi markii uu soo dhamaaday, haweeney senator ah oo u dhalatay dalkaasi Paraguay waxa ay weerar ku qaadaysaa Mbappe oo ah ciyaartooyga koowaad ee xulka qaranka Faransiiska. maxay haddaba haweeneydani qoonsatay? maxay tidhi? muxuu Mbappe isaguna ka yidhi? waa tan qisada dhinacyadan dhex martay oo la yaab leh. ku soo dhawaada muuqaalkeena cusub adigoo oo like saaraya. haddii aanad weli ka mid noqon asxaabta ku xidhan qaamuus, fadlan subscribe saar si muuqaalada halkan aanu ku gudbinaa ay kuu soo gaadhaan. waa hagaag saaxiibayaal, haweeneyda lagu magacaabo Celeste Amarilla waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waddanka Latin America ku yaala ee Paraguay, kana tirsan xisbiga mucaaradka. waxay muddo dheer ku jirtay siyaasadda dalkaasi, waxaana lagu yaqaanaa hadalla adag iyo doodo qallafsan oo siyaasadeed. kadib ciyaartii koobka kubadda cagta adduunka ee dhex martay France iyo Paraguay, waxay baraha bulshada ku baahisay hadallo lagu tilmaamay kuwa cunsuriyad ah oo si gaar ah u bartilmaameedsaday Kylian Mbappe. haweeneydu waxa ay durtay ciyaaryahankan. hadalladeedu waxay ku salaysnaayeen jinsiyadda asal ahaan ee Mbappe iyo oogadiisa jidheed iyo muuqaalba oo ay wax ka sheegtay. tani waxa ay dhalinaysaa cambaarayn caalami ah. kubadda cagtu waa ciyaarta ugu daawashada badan dunida, laakiin marar badan waxa ay noqotaa meel ay ku kulmaan siyaasadda, qarannimada, jinsiyadda iyo arrimaha bulshadu. marka dalal kala duwani ay ku tartamayaan tartamada waaweyn sida koobka adduunka, ciyaartu ma noqoto oo kaliya 90 daqiiqo oo garoonka lagu ciyaaro. waxay isu beddeshaa astaan matasha sharafka qaranka, aqoonsiga bulshada iyo mararka qaarkood doodaha siyaasadeed ee dunida ka socda. taariikh ahaan waxaa jiray dhacdooyin badan oo muujinaya sida siyaasadda iyo kubadda cagtu isugu milmaan. waxaan tusaale u soo qaadan karnaa oo tusaale inoogu filan ciyaarihii dhex maray qaramada dunida markii uu socday dagaalkii qabooba, doodihii la xidhiidhay cunsuriyadda, muranada qaxootiga iyo socdaalka, iyo xataa khilaafaadka diblomaasiyadeed ee ka dhashay ciyaaro caalami ah. ciyaartooyda caanka ah sida Mbappe oo kale oo leh malaayiin taageerayaal ah waxa ay noqdaan astaamo ka baxsan ciyaarta lafteeda. dadka qaar waxay u arkaan geesiyaal qaran, halka kuwa kalena ay bartilmaameedsadaan sababo la xidhiidha asalkooda, jinsiyadooda, midabkooda ama aragtiyo siyaasadeed oo aan wax xidhiidh ah la lahayn ciyaarta markaasi socota. dhacdadii dhex martay haweeneyda xildhibaanka ah ee lagu magacaabo Celeste Amarilla iyo Mbappe waxay tusaale u noqotay sida hadal siyaasadeed oo lagu qoray baraha bulshadu isugu bedeli karo arrin siyaasadeed oo caalami ah oo taabanaysa dhinacyo kala duwan sida sharciyadda, xuquuqda aadanaha, sumcadda iyo arrimo kale. aanu soo gundadoga saaxiibayaal dulucda mawduuceena. maxay haweeneydani ka sheegtay Mbappe? inkasta oo qaarkiin ay maqleen, haddana faahfaahintu waa sidan. khilaafku wuxuu bilowday kadib guushii Faransiisku 1-0 ku muquuniyey Paraguay. khudbaddii ama qoraalkii ay xildhibaan Celeste Amarilla ku qortay baraha bulshadu wuxuu ahaa mid dheer, balse dulucdiisu waxay ahayd sidan. waxaan ku eedaynayaa Kylian Mbappe inuu ciyaarta dhexdeeda u dhaqmay si kibir iyo ixtiraam darro leh. waa Camerooni gumaysi lagu haysto oo isku dayaya inuu isku ekaysiiyo Faransiis. intaas ayay tidhi markii hore. tani waxay ahayd hadal si weyn loogu tilmaamay cunsuriyad. waxay ku sheegtay inuu yahay qof edeb daran oo aan xataa akhris iyo qoraal toona si fiican u aqoonin. taana waxay ugu qarinaysaa inuu yahay jaahil aan waxba baran. waxay sheegtay in ciyaartooyda Paraguay ay ahayd in ay si adag ula dhaqmaan oo ay dhaqankiisan xun ka jawaabaan, xataa iyadoo soo jeedisay in ay dharbaaxaan ciyaarta kadib. waxay isku dayday in ay doodeeda ku salayso in Mbappe aanu si dhab ah u matelin Faransiiska, taas oo si toos ah u taabanaysa asalkiisa iyo jinsiyaddiisa halkii ay ka ahaan lahayd falanqayn ciyaareed. Amarilla waxay ka gudubtay dhaleecayn ciyaareed, waxayna weerar ku qaaday Mbappe iyadoo oo adeegsatay hadallo ku saabsan asal ahaan jinsiyaddiisa
iyo aqoonsigiisa Faransiisnimo taas oo dhalisay cambaarayn caalami ah iyo baaritaan sharci oo Faransiisku bilaabay Amarilla waxay ku dooday in Mbappe aanu ixtiraam u muujin ciyaartoyda Paraguay kadib ciyaarta balse hadaladeedu kuma ekaan dhaleecayn ciyaareed waxay u gudubtay weeraro ku saabsan jinsiyadiisa iyo asal ahaan halka uu ka soo jeedo iyadoo u adeegsatay erayo si weyn loogu tilmaamay cunsuriyad iyo nacayb tani waxay sababtay in gooldhaliye Mbappe uu isna markiisa ka soo jawaabo eedaha uga yimid haweeneydan xildhibaanka ah sidoo kale xiriirka kubadda cagta Faransiisku waxay wacad ku mareen in ay dacwad ka gudbin doonaan haweeneydaasi sidoo kale xukuumadda Paraguay iyana waxay iska fogeysay hadallada haweeneydan xildhibaanka ah oo ay ku sheegeen in aanu ahayn mid loo raaci karo xukuumadda iyo shacabka Paraguay waxa iyana xusid mudan in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu taageero u muujiyay Mbappe halka xeerarlayaasha Faransiiskuna bilaabeen baaritaan sharci sidoo kale daraasado suurta gelinaya dacwad caalami ah iyo maxkamad in ay la tiigsadaan haweeneydan xildhibaanka ah inta haddaynu ka gudubno jawaabta Mbappe sida haydiyaduna jawaabta Kylian Mbappe waxay ahayd mid degan laakiin aad u adag oo si toos ah u cambaareysay cunsuriyadda iyo mas'uuliyadda ka saaran hogaamiyaasha siyaasadda Mbappe wuxuu qoraal uu baraha bulshada mariyay ku sheegay isaga oo yiri sida tan waa haweeney laga yaqiiqsoodo waxa uu sheegay in qof xil haya oo gaar ahaan xil qaran haya aanu ahayn in uu faafiyo hadallo nacayb iyo cunsuriyad ku salaysan waxa uu sheegay in hadalladeedu aanay dhaawicin isaga oo kaliya balse ay sumcad xumo u horseedeen Paraguay lafteeda qodobka ugu xoogga badnaa ee qoraalkiisu waxa uu ahaa sidan mas'uuliyad darradaada iyo cunsuriyadaada cad awgeed dunidu waxay ilowday safarkii quruxda badnaa iyo dadaalkii taariikhiga ah ee ay sameeyeen ciyaartoyda dalkaaga Paraguay u dhashay intii uu koobkani socday intaas ayuu yiri Mbappe waxa uu la jeeday in Paraguay ay ahayd xul si wanaagsan uga soo dhex muuqday tartanka muddadii uu socday balse halkii indhaha dunida lagaga xusi lahaa waxqabadka ciyaartoyda Paraguay warbaahinta oo dhan awoodda saartay hadallada cunsuriyadda ah ee xildhibaankan intaa kadib waxa uu sheegay in cunsuriyaddu aanay meel ku lahayn kubadda cagta ama bulshada casriga ah wuxuu ku booriyay dadku inay ixtiraamaan kala duwanaanshaha dadka midabka jinsiga iyo mabaadi'da isagoo xusay in kubadda cagtu ay midayso ummadaha halkii ay kala qaybin lahayd sidoo kale Mbappe waxa uu si buuxda u taageeray tallaabadii uu qaaday xiriirka kubadda cagta Faransiisku taas oo dacwad sharci ah ka gudbinaysa Amarilla isagoo xiriirku ku eedeeyay haweeneydaas hadallo cunsuriyad iyo nacayb ah dowladda Faransiiska iyo madaxweyne Macron waxa ay ballan qaadeen in aanay ka hadhi doonin haweeneydan xildhibaanka ah fariinta ugu weyn ee Mbappe ee hadalkiisa ku jirtay waxay u dhignayd sida tan adigu ima aanad dhaawicin oo kaliya waxaad dhaawacday magaca Paraguay halkii dunidu ka xusi lahayd guulihii iyo dadaaladii xulka Paraguay waxay maanta ka hadlayaan cunsuriyadda aad faafisay miyaanay taasi ahayn wax laga xumaado intaas waxay ahayd hadalladii uu Mbappe kaga jawaabay caydii uga timid gabadhan xildhibaanka ah xiriirka ka dhaxeeya cunsuriyadda iyo ciyaartoyda caanka ah ayaa in badan la isweydiiyaa idinkuna aad ka warhaysaan saaxiibayaal oo aad maqasheen marar badan ciyaartoyda caanka ahi waxa ay marar badan la kulmaan weeraro cunsuriyadeed sababta oo ah waxay leeyihiin muuqaal caalami ah oo si weyn loo arko waxay matalaan dalal iyo bulshooyin kala duwan guuldarrooyinka ama guulaha ciyaaraha ayaa mararka qaar kiciya dareenno qarannimo oo xad dhaaf ah baraha bulshada ayaa sahla in hadallada nacaybka ahi si degdeg ah u faafaan Mbappe ma aha ciyaaryahankii ugu horreeyay ee la kulma arrintan ciyaartoy badan oo asalkoodu yahay Afrikaan iyo qowmiyado kale oo laga tira badan yahay ayaa sanado badan la kulma aflagaado cunsuriyadeed garoomada dhexdooda iyo xataa internetka xiriirka kubadda cagta adduunka ee loo yaqaano FIFA ayaa sheegtay isaguna inuu la dagaalamo cunsuriyadda balse waxaa lagu dhaliilaa in aanay weli qaadin tallaabooyin adag oo wax laga qabanayo arrintaasi FIFA waxay cunsuriyadda ula dagaalantaa sababo dhowr ah kow kubadda cagtu bay dhahdaan waa ciyaar caalami ah oo ay wada leeyihiin dhammaan jinsiyadaha dunidu laba cunsuriyaddu waxa ay dhaawacdaa ammaanka iyo wadajirka ciyaaraha saddex waxay cabsi gelisaa bay yidhaahdeen ciyaartoyda iyo taageerayaasha cunsuriyaddu bay yidhaahdeen waxay dhaawacdaa sumcadda tartamada caalamiga ah sidoo kale waxay ka hor imanaysaa bay yidhaahdeen qiyamka sinaanta iyo xuquuqda aadanaha ee FIFA iyo ururada kale ee kubadda cagta sidaas darteed FIFA iyo ururada qaaradaha sida UEFA waxay adeegsadaan ganaaxyo kala duwan sida ganaax lacageed ciyaaro albaabadu u xidhan yihiin oo garoomada laga dhigo kuwo bilaa trabuun ah ama bilaa taageerayaal ah hakinta ciyaartoy ama mas'uuliyiin kale ayaa iyana ka mid ah tallaabooyinka ay qaadaan sidoo kale dacwado sharci haddii ay hadalladu jebiyaan shuruucda wadamada qaarkood ugu dambayn kiiska xildhibaan Celeste Amarilla iyo Kylian Mbappe waxa uu muujiyay in xilligan casriga ah xuduuddu aanay ku ekaan garoonka kubadda cagta hal qoraal
oo lagu baahiyo baraha bulshada ayaa isu bedeli kara muran diblomaasiyadeed sharci iyo mid xuquuqda aadanaha taabanaya sidoo kale wuxuu xasuusinayaa in caannimada ciyaartoydu ay la timaado culays dheeraad ah oo ay ka mid yihiin weerarada cunsuriyadda halka hay'adaha sida FIFA iyo xidhiidhada kubadda cagtu ay sii xoojinayaan dadaalada lagu ilaalinayo in ciyaartu noqoto meel ay qof walba si siman uga qayb gali karo iyada oo aan lagu kala soocin midab jinsiyad asal diin iyo dhaqan toona mawduucaasi halkaas ayaan ku joojin doonaa oo aan ku hakan doonaa balse aan idin xasuusiyo ama aan idinku baraarujiyo in ciyaarta kubadda cagtu ay tahay awood qarsoon oo ka badan ama ka xeel dheer inta ku muuqata dad badani waxay isweydiiyaan kubadda cagtu inay tahay istiraatiijiyad qarsoon oo ay cid kale manfac ka helaan halka ay kuwa badan oo kale u arkaan madadaalo kaliya doodaas bal hadda wixii aad ka qabto fadlan qaybta faalada igula wadaag wixii aad ka aaminsan tahay kubadda cagta aniga oo talo odaynimo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed u soo jeedinaya in aanay kubadda cagtu noqon yoolkooda iyo higsigooda ugu dambeeya ee ay kaliya u qaataan madadaalo kooban tan micnaheedu ma aha inaan meesha ka saarayo xamaasadda ay leedahay daawashada ciyaarta kubadda cagtu balse waxa mudan in aan loo nisbo sheegan naftana aan la raacin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Welcome to Minnesota. haddii aad sideedoo kaleeto socodkaagu u badan yahay safarkaagu waxaad u isticmaali kartaa abka dahabshiil faamilkaaguna waxay lacagta ku helayaan daqiiqada gudahood lacagta ugu horreysa ood ku dirtana waa free